عقاشة iyo waxgaradka beesha aan Cabdalle Hinchille ayaa tacsi ka dirtay geerida ku timi Allah u naxariistay garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud oo kamid ah garaadada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuna geeriyooday magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland. Caqaasha iyo waxgaradka beesha aadan Cabdalle Hinchille waxa tacsi gaar ah u direen eheladii qoyskii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday iyo waliba guud ahaan bulshada Soomaaliyeed uu ka baxay garaadku waxaana hadalladooda kamid ah sida tan. الرحمن الرحيم أنا كوا بيش هذا عبد الله كله كان نسقوني بحوية ما أنتم حدارية تعسي صاء قريد كنت من قراد سليمان قراد محمد قراد محمود الله يرحمه رحمه الله ونحرسه ومدي ودلي يدتكي ومدي شاء الله ودلي وسيرتي سمري إيمان الله كسيه ومدي ويند وبقر كواهنا إلهي سمري إيمان كسيه أنت كبعدي وهو بقر نكاسي عادلة نبض كسنتن aad iyo aad loo yaqaan gabayga Soomaali oo boqor waxa baa la oran karaa Ilaahay u naxariisto Ilaahu raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un halkan waxaanu isugu nimi tacsidii garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garowe Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu kitaabkiisa midigta uga dhiibo annagoo ah beesha Hinchille ama aadan Cabdalle إلهي وحنا وقبرينا إنه كتاب كيس قعنته وقول بتشنة فردوسنا إلهي وجيو عذاب القبر جي وكبر موسى وحلي شن تقف عذاب القبر كان الحين بكم من نقضي ما لين تجمعها قف كل أنت عذاب القبر ما لها وحوي حسابتنا إن إلهي وفضوا يوم إلهي وقبرينا شن فردوسنا وجيو بقر بوها بقر هرتيات أما سدارات با شن فردوس إلهي هجي دم سنة الله دافو دارات iyo harti oo dhan samir iyo dhamaan Ilaahay ha ka siiyo Soomaali oo dhan aynana waa u ducaynaynaa in Ilaahay janno firdawsa geeyo dambigiisana Ilaahay uu dhaafo ummadda uu ka dhintayna Ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo sidaas Ilaahay baanu saa uga baryaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaanu ka tacsiyadaynaynaa geeridii naxdinta ahayd ee ku timi garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Cali oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Garowe dadkiina aad uga wada naxay laguna aasi doono sarmaayo bariimaysa dambe waxaanu leenahay dadkii uu ka geeriyooday samir iyo iimaan Allah ka siiyo caawil khayr qaban Allah ugu bedelo waanu tacsiyadaynaynaa wuxuu ahaa garaad nabad jecel wuxuu garaad dadku siman yahay waanu tacsiyadaynaynaa Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dadkoo dhan dadka wixii dibadda jooga iyo wixii dalka joogana waxaanu ka rajaynaynaa inay soo duceeyaan oo naxariistii janno Allah siiyo lana cafiyo dadkuna uu ka soo qayb galo wixii awoodi karaa tacsida iyagoo u imanaya qudura qaadasho inay dhiman doonaan iyo iyagoo u ducaynaya aan lala iman wax kale oo siyaasada sallallahu alayhi wasallam waxaanu halkan isugu nimi saxaafadan u duubnay annagoo ah qabiilka beesha aadan Cabdalle ama dadku say u yaqaaniin Hinchille inaanu ka tacsiyeyno geerida ku timi garaadkeeni weynaa garaad Salmaan garaad Maxamed garaad Maxamuud garaad Cali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsin dha'iqatul maut Ilaahay ha u naxariisto Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu janno firdawsa geeyo ummadana samir iyo iimaan ka siiyo dhamaan u garaadka u ahaa khaas ahaan ehelka iyo raaska ducun buu u baahan yahay intaasaanu meesha saxaafadaydu u timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan uga baryaynaa dad wixii uu ka dhintay inuu samir iyo iimaan ka siiyo Ilaahay waxaanu ka baryaynaa ummadda dhan ee uu ahaa garaadka u ahaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo Ilaahayna isaga waxaan uga baryaynaa jannadii inuu Ilaahay ka waraabiyo Ilaahay baan uga baryaynaa Ilaahay baan uga baryaynaa Ilaahay baan uga baryaynaa Ilaahu naga ajiib Ilaahu naga aqbal Ilaahu waa u baryaynaa Ilaahu baryada naga ajiib oo naga aqbal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan joognaa magaalada Xudun dooxada Xudun waxaan halkan ka dirnaa baaqa tacsidaan u dirno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan beesha Harti guud ahaan beesha weynta dhulbahansi taasoo aan uga tacsiyadayno garaadka ku geeriyooday magaalada Garowe
garaad salebaan garaad maxamed garaad maxamuud garaad cali oo ka mid ahaa ismada dhaqanka beesha harti oo ahaa odayaashii ugu waaweyn garaadka waxaa lagu cimaamaday 1982 magaalada sarmaanyo oo hadda lagu aasi doono maalinimada isniinta muddo 40 sano ah buu hayay cimaamada beesha dhaqanka guud ahaan waxaan ka tacsiyeenaa beelweynta maxamuud garaad iyo beelsha maxamed siyaad uu garaadka u ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u marnaynaa ilaahay inuu samir iimaan saadiq ka siiyo dhammaan reer garaad Saleemaan iyo reer garaad maxamed iyo caruurtiisii iyo xaasaskiisii waxaan halkan tacsi tiraanyada uga direynaa garaad Saleemaan garaad maxamed garaad maxamuud ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadii uu ka dhintayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo raxiim waxaan halkan tacsi ka direynaa anagoo ah odayada beesha aadan cabdalle ama hinjile tacsi uga direynaa garaadkii Soomaaliyeed ama garaadkii Soomaaliyeed garaad Saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud taasida sida odayadii hore sheegeen waxa weeye tacsi tiraanyale waxa weeye qod baa ka dumay Soomaali oo dhan baa uga tacsiyadaynaynaa waxaan leenahay garaadka alla ya raxmo raximin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto kana dooxada degmada xudun waxa shir ku qabtay baasha aadan cabdalle hinjile kaasoo tacsi u direeyay garaadkii dhintay garaad Salebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo ku gooriyay magaalada Garowe waaniga maxamed cawil kawte degmada xudun ee gobolka Sool